xeeraalinta Soomaaliland gaar ahaan kuwa gobolka Maroodijeex ayaa soo saaray dambiyada u haysan suxufi Cabdimaalig Muuse Coldoon oo muddo ka badan 40 maalmood ku xidhan magaalada Hargeysa. qoraal ay xeeraalintu u dirtay maxkamadda gobolka Maroodijeex oo nuqul ka mid soo gaaray Cable TV ay xeeraalintu ku sheegeen in Cabdimaalig Muuse Coldoon loo haysto eeday ay ka mid yihiin inuu sameeyay warar been abuur oo khalkhal gelin kara ammaanka guud ee qaranka inuu tagay magaalada Xamar halkaas oo ugu ololeyay musharaxiintii ku tartamayay doorashadii madaxweynenimada Soomaaliya gaar ahaan Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynaha hadda ee Soomaaliya. Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa sidoo kale xeeraalintu ku eedeysay inuu ka hor yimid jiritaanka Soomaaliland una qaatay calanka Soomaaliya isagoo ku dhawaaqay in Soomaaliya ay mid tahay sida hadalka u dhigtay xeeraalintu isagoo bay yiraahdeen muwaadin reer Soomaaliland. xeeraalinta ayaa sidoo kale dambiyada ku soo oogtay Cabdimaalig Muuse Coldoon waxa kamid ah inuu aflagaadeeyay madaxda qaranka gaar ahaan afayeenka madaxtooyada Soomaaliland isagoo adeegsanaya baraha bulshada ku wada xidhiidho gaar ahaan Facebook. dhinaca kalena garyaqaanada u doodaya Cabdimaalig Muuse Coldoon oo kala Maxamed Axmed Abakar iyo Guuleed Axmed Jaamac oo Cable TV la xidhiidhay waxay sheegeen inaan Cabdimaalig Muuse Coldoon aanu gelin dambiyada lagu soo eedeeyay isla markaasna aanu marnaba ka hor imanin qarannimada Soomaaliland waxaana intaasi ku dareen inuu iska hor difaaci doono maxkamadda horteeda. waa markii ugu horeysay gal dacwadeed aanay maxkamaddu bilaabin dhageysigiisa loo dusiyo warbaahinta sanadihii u dambeeyay Soomaaliland. حسن قليل Cable TV Hargeysa.